boqolaal shacab Muslim ah oo garaaceen nin najaaseeyay kitaabka Quraanka Kariimka ah sidoo kalena gubeen jirkiisa oo nafta dhaafiyeen. walaal si aan u gudagalno muuqaalkan like saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan like-na waa inoo muhiim mahadsanidin badan iyadoo muddooyinkan dambe ay soo badanayaan isku dhaca dadka haysta diimaha caalamka gaar ahaan kuwa haysta diinteena suuban ee Islaamka iyo kuwa haysta diinta Kirishtaanka lana soo warinayay muddooyinkan dambe dhacdooyin ku cusub caalamka xilligan ayaa waxaa dalka Bangladesh magaalo ka tirsan waxaa ka dhacay in dadweyne fara badan oo boqolaal gaaraya aadna u caraysnaa in ay weerareen laba nin oo la sheegay in ay inta masjid galeen kitaab Qur'aan najaaseeyeen sidoo kalena dhulka ku tuureen. boqolaalka shacabka ah ee ku nool magaalada Burmeri oo dhacda xuduudda ay Bangladesh la leedahay dalka Hindiya ayaa ninka kitaabka Quraanka ah najaaseeyay garaaceen sidoo kalena meydkiisa gubeen kadib markii ay aad uga xumaadeen falka uu ku kacay sida ay sheegeen booliiska magaaladaasi. dadweynaha oo markii ay maqleen falka raggaasi ay ku kaceen ayaa waxa ay qabteen labada nin oo masjidka falkaasi ku dhex sameeyeen markii lagu eedeeyay in ay cagta saareen ama lugaha ku dhufteen kitaabka Quraanka ah oo dhex yaalay masaajidka weyn ee Burmeri oo dhaca degmada Lalmonirhat oo in ka badan 300 kiiloomitir ama 186 mayl waqooyi galbeed ka xigta caasimadda Bangladesh ee Dhaka. booliiska magaaladaasi ayaa waxay cadeeyeen in uu hal nin ka baxsaday dadweynahaasi balse ay kii kala dileen sidoo kalena ay meydkiisa gubeen. dhinaca kale booliisku waxay sheegeen in labada nin markii hore ay maamulka masaajidkaasi soo dacweeyeen oo la xiray balse dadweyne badan oo caraysnaa oo goobta tagay ay xoog kula baxeen labadaasi nin. ciidamada oo rasaas ku kala celimaadayna ay dadka hakin waayeen maadaama 1000 qof ay ka badnaayeen sida ay booliisku sheegeen. dhacdadan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dunida Islaamka ay ka jirto caro xooggan oo ka dhalatay hadalkii gafka ahaa ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron u geystay diinta Islaamka iyo sidoo kale suubanaha nabigeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.